Yeyla waxay ka mid tahay deegaamada gobolka Sool waxayna ku taalaa meel istiraatiiji ah iskuulka magaalada Yeyla oo aanu isna booqanay waxaanu ku aragnay dayacaad u fara badan kaasoo uu ka muuqdo dhismayaasha iskuulka galaasyada anagoo u galay fasal iskuulkani wuxuu uusan lahayn koob caruurta ay biyaha ka cabaan malaha deyr sidoo kale malaha qaybta sanitation ama suuliyada ciyaalku galaan iska badaa in ay helaan goobaha faraxal iskuulku malaha deyr waxa uu ah ooda iskuulkan ayaa waxaa dhigta arday aad u fara badan gaarisa 550 arday halkaasi ayaa waxaa jirta in ay saameyn ku yeelatay abaarta ka taagan hadda deegaanadani mar aan wareysi la yeelanay maamulaha iskuulkaasi ayaa wuxuu noo sheegay tirada hablaha ay dhigatay inay gaarayaan 130 balse uu iskuulkani la daalaa-dhacaynaya dhibaatooyin xagga cunooyinka isugu jira haraas fara badan oo caruurtii ay waayeen biyo ay cabaan dhanka kale waxaa dhibaato fara badan ku haya iskuulkani oo ku yaala meel kayn ah oo u baahan in loo sameeyo deer taasoo khatar fara badan ku keeni karaysa ubadka yaryar iyagu dadka dhigta ayaa iyagu waxay ka kooban yihiin dadka magaalada iyo dadka xooluhu ay ka soo dhamaadeen ee miciinka soo bida gudaha magaalada Yeyle mana jiraan ilaa ay hadda cid isu xilqaantay sidii wax loogu qaban lahaa iskuulkani oo ay dhigtaan arday aad u badan oo shaqaalaha ku tagnay inaga oo toddobaadada soo socdaan haddii rabbi ka noqdo idiisoo gudbin doona qaar ka tirsan iskuulada deegaamada gobolka Sool iskuulku aad iyo aad bay fara badan tahay waxaa ka mid ah iyada oo ay noo dhisan yihiin 2 qol iyo qol xafiisa oo ay dayacan yihiin intu ay dayacan yihiin daaqadihiina ay ka burbureen dayactirna aan haysan qalabayn xafiisna ma aan haysan kulaasida iyo miisaanka caruurta ku fadhiisanayna ay nagu yar yihiin oo aanay ku filaan waxaanu haynaa 5 heer oo iskuul fasalka koowaad ilaa fasalka 5aad 2 qol baa noo dhisan 3 qol baa naga maqan 3 qol ardayda qaarkood gelinka dambe aan u dhignaa qaarna markaan gelinka hore iyo gelinka dambe oo boosas u weynay waxay kalitay inay iska tagaan oo suuqa galaan kuwii gelinka dambe laftigoodu gelinka dambe macallin gelinka hore shaqeynayay oo oraysi weysiistay shaqada gelinka hore gelinka dambe macallimiintii way shaqeyn kari weyday dabadeedna kuwa laftigoodu suuqa ay galeen tira ilaa 200 ku dhow oo arday ah ayaana gacanta ku hayn oo suuqa naga galay iyadoo aad u weynay macallimiin ku filan oo maxay ahayd wax barta iyo qolal ku filan taasi waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn ee iskuulka haysta talabaad intii noo dhisnay 2 qol iyo xafiiska iyo 2 suuliye ah iyaguna way dayacan yihiin dayac fara badan ayaa wariye sidaad aragtidba ka muuqato ay ka mid yihiin iyadoo suuligii albaabadii ay ka burbureen godadkii oo maxay tahay dumay cid noo dayactiraan maanan arag marka wariye inta aad aragtid ee aad hadda indhaha ku haysid ayaa iyaduna haysata iskuulka inta aan gacanta ku haynaade marka balka waran dhibaatadana sidee bay idin saameysay maadaama aad macallimiinta tihiin waxay noo saameysay iyadoo iskuulkii haddeerta uu marayo in la xidho markii loo waayay macallimiin ku filan markii loo waayay qoran iskuul oo ku filan markii loo waayay iskuulka maxay tahay dad arday ah oo ilaa maanta oo dhan xiisadii fadhiya markay xaaja qabato suuliye ay ku xaaraan markii loo waayay baahi haraad awgeed barkedo yani ay ka cabaan iyo biyo ay ka cabaan iyadoo magaaladu ay naga fogtahay dhibaatooyinka noocaas ay ka mid yihiin haraadka suuli la'aanta qolalka aan lagu filayn macallimiinta nagu yar ayaa hadda waxay nagu kalifayaan in iskuulku xidhmo sidaan hadda soo aragnay iskuulka waxa deer waa ood bal ka waran iyada dhibaatada inta la dhibaatada taasina waxay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu halisiisan sababtoo ah waxaa nagu dhow reemiya ah oo iskuulka agtiisa u dhow oo danyar ah oo miyiga u geli kari waayay magaaladana maxay tahay maamulka magaaladooda dhaqameedadu ay ka soo saareen dabadeedna xoolahaasi waxay nagu hayaan dhibaato iskuulka oo aan deednayn aawadeed xooluhu markaan iskuulka xidhno way noo soo daba maraan dabadeedna albaabada xidhan mooyaane inta kale oo dhan xaal iyo kaadi ayaan subaxii waageeda bariya ugu nimaadnaa dabadeedna casharada waqtiga iskuulka wuxuu dhaafaa inta aanu ka nadiifinayna xaalka iyo kaadida xoolaha waxaa kaloo dhacda in aanu maxay ahaytoy albaabada nalaga jijabiyey oo yani nalaga jijabiyey macnaha ciyaalka yaryar ee jijabinaya deer la'aan iyo ganjeelaan awoodii taasina iyadana saasay dhibaato noogu haysaa bal ka waran dadka reer miyiga dhigta tiradoodu inta maadaama meeshan ay tahay meel dadka reer guuraagu ay ku dhow yihiin dadka reer miyiga iskuulka dhigtaa way badan yihiin dadku aad iyo aad bay u badan yihiin laakiin haddeerto way iska tageen sababaha u tageenna waxaa ka mid a qolalkii oo ka yar ilaa 250 arday baanu haddeer haynaa gacanta ku haynaa gelka hore gelka dambe haddeer laakiin waxay noqonaysaa siday ku socoto in ay tagto sababaha ugu weyn waxa weeyaan dad reer miyiga oo danyar ah oo aan maxay tahay lahayn business waalidkood lahayn xoolana lahayn dibadana wax ka qaadan ayaan wax u dhigi jirnay dadkiina macaluul iyo baahi iyo dhaqaale la'aan iyo freedom aanan iskuulkii ku hayn aawadeed ayay dadkaas iyana nooga tageen oo ka mid ah problemka iskuulka haysta
cabdikariin nolol oo barnaamijka waxbarashada ee deegaanka Sool.